السلام عليكم سودو أصحابتا maanta muuqaalkeen waxaan kaga hadli doonaa cilmi baaris ay sameeyeen David Marrill iyo Roger Reid oo ku takhasusay cilmi nafsiga ay ku baarayeen saameynta abuurista iyo hab dhaqanka dadka ku leeyihiin waxqabadkooda ay ku ogaadeen in dadka u kala qaybsamaan afar nooc laakiin ka hor inta aan muuqaalka u guda galin fadlan hadaan u cusub tahay subscribe noo saar like iyo share noo idhaado la sii wadaaga asxaabtaada kale hadda aan isla soo eegno dabeecadda koowaad ayaa waxaa lahaa driver style waa qof hadal yar howl badan waxa sidoo kale lagu sheegay in qofkani uu jecel yahay inuu dadka hogaamiyo kuna dhiiran qaadashada go'aanada khatarta ah waxa uu ku raaxaystaa loolanka iyo inuu jiiro caqabadaha ama ka hortago caqabadaha mana seexdo ilaa uu ka guul gaaro hadafkiisa iyo shaqada uu hayo haddaba qofkan ayaa lagu sheegay inuu yahay qof howl adag kaasoo jecel in loo qabto wax walba sidoo uu rabo taasoo keenaysa in dad badan ay ku kala dhintaan go'aanadiisa haddaba qofkan marka uu dadka la dhaqmaayo masawir badna mana ku fiicna aqrinta dadka kala dareenkooda iyo ilaalintoodaba waxaana u fudud inuu isi saxo haddii uu ogaado inuu qaldan yahay haddaba haddii aan isla soo eegno numberka labaad ama dabeecadda labaad ayaa waxaa lahaa analytical style haddaba qofkan ayaa waxaa lagu sheegaa inuu yahay qof xasilo taxadar badan kuna fiican joogtaynta inuu raaco nidaam sharciyada degsan waxa uuna jecel yahay inuu dadka ka fogaado oo naftiisa la sheekaysto qofkani ayaa waxa uu ku khabiir ku yahay gorfaynta iyo falanqaynta xaaladaha adag iyo inuu wax ka eego dhinacyo kala duwan waxa uuna ku raaxaystaa akhriska iyo xoraansiga iyo xog aruurinta iyo sidoo kale xalinta culeysyada adag waana qof garasho leh kuna fiican akhrinta dareenka dadka kale mana jecel qaadashada go'aanada khatarta keeni kara haddaba haddii aan isla soo eegno numberka saddexaad ama dabeecadda saddexaad ayaa waxaa lahaa expressive style haddaba qofkani ayaa waxaa lagu sheegaa inuu yahay qof firfircoon naxariis badan niyadsan dulqaad yar xasaasi ah oo ay u fududahay in dareenkiisa la kiciyo maskax furan leh oo ay u fududahay in uu raadiyo dhibaato jirto hal abuur leh oo maskaxdiisu ay ka guuxayaan fikrado badan oo miro dhal ah iyo qorshayaal qurux badan balse kuma fiicna fulintooda haddaba sidoo kale qofkan ayaa waxaa lagu sheegaa inuu yahay qof aragti fog oo markasta soo jeediya fikrado qurux badan oo la jeclaysto waxa uu sidoo kale jecel yahay safarka waxa uuna ku fiican yahay dhiirigelinta curinta iyo dadka inuu wax ka dhaadhiciyo dadkuna waxay jecel yihiin sheekooyinkiisa haddaba haddii aan isla soo eegno numberka afaraad ama dabeecadda afaraad ayaa waxaa lahaa amiable style haddaba dabeecaddan ayaa waxaa lagu sheegaa qofka leh inuu yahay qof bulsho ah dulqaad badan daacad ah naxariis badan ayna fududahay in wax loo sheego haddaba sidoo kale qofkan ayaa waxaa lagu sheegaa inuu yahay qof ku fiican dhexgalka bulshada iyo la dhaqankooda waxa uuna waqtigiisa ugu badan la qaataa asxaabtiisa waxa uuna jecel yahay in lagu wada shaqeeyo saaxiibtinimo waa qof naxariis badan oo nacab khilaafka iyo inay dadka isku dhacaan ayna dadka ka shaqeeyaan uguna muhiimsan yihiin shaqada la qabanayo haddaba qofkan ayaa waxaa sidoo kale uu yahay boqor qof kasta isfahmi karaan oo laga jecel yahay goobaha shaqada kuna fiican caawinta dadka iyo inuu aqriyo uuna ilaaliyo dareenka dadka kale haddaba qofka driverka ayaa waxa uu qofka analytic ah u fahmaa inuu qof go'aan lahayn sidoo kale expressive-kana waxa uu aaminsan yahay inuu yahay qof faataala ah halka amiable uu arko qof daacad ah tii aan isla soo eegno qaybta labaad analytic dadka dabeecadaas leh ayaa waxa uu driverka u arkaa inuu yahay qof qar iska tuur ah halka expressive-kana waxa uu ka aaminsan yahay qof hal abuur leh waxa sidoo kale amiable-kana uu ka aaminsan yahay inuu yahay qof mujaamalo badan amiable-ka ayaa waxa uu driverka u arkaa hogaamiye halka analytic-kana uu ka aaminsan yahay inuu yahay qof faataala ah halka expressive-kana uu u arko qof hadal badan howl yarna haddaba expressive-ka ayaa waxa uu driverka u arkaa inuu qof isla weyn yahay halka analytic-kana uu arko khabiir caqli badan halka amiable-kana uu arko qof jilicsan sida ay daraasaduhu sheegtay waxaa si fiican isku fahmaya driverka iyo amiable-ka sidoo kale waxaa isugu baxda analytic-ga iyo expressive-ka shakhsiyadda dadka badankooda waa isku dhaf afartan nooc tusaale ahaan qofka ayaa waxaa laga yaabaa inuu yahay 50% driver 15% analytic halka
expressive-kana uu yahay 15%, 20% soo hartana uu yahay amiable-ka qayb ka mid ah. dadka qaarna waa isku dhaf oo 2 iyo 3 nooc, sida driver-ka inuu ka yahay 25%, analytic-gana uu ka yahay 75%. qaarna waa hal nooc oo baraxla, sida analytic inuu yahay 100%. qof kasta waxa uu jecel yahay inuu la sheekaysto lana shaqeeyo qof ku nooc ah. waxaase fiican inuu qofka ogaado shakhsiyadiisa iyo noocyada dadka ku xeeran, uuna naftiisa ku tababaro tilmaamaha ka maqan ay ku fiican yihiin noocyo kale. markii koox shaqo loo sameeyana waxaa ku fiican in dadka isku dhafo dadka kala nooca ah si ay isku dhamaystiraan ayna usoo baxdo koox isku dheelitiran. qof kastana la ciyaarsiiyo kaalintiisa oo expressive-ka looga faa'iidaysto hal abuurka iyo curinta, analytic-kana taxliilinta fikrad, halka driver-kana uu laga qaato fulinteeda ama loo daayo fulinteeda. haddaba daawado midee tahay commentiga noogu soo reeb. haddaba waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. ka hor inta aan muuqaalka ku kulmi doon waxaa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.